السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وحوية بدرية عبد الله. ما أنت وحن كسو هادليا مقالة رنتون واشنطن أو أودو سيارة واشنطن قف آد قالي ومقالة وقوه بان ما أنت محد هاينا ودينينا برنامج كسو عدا رنتون واشنطن لايبراري كان وحالي هذا Celebrate Dia 2023 إن شاء الله يلا سفع النوغة شاكانسا وكنا فاطمة بلالة والله لو ما أنت waxaad nooga sheekaysaa xoogaa buuga aad qortay waxa weeye buug aad iyo aad qaali u ah oo inamaha yaryar oo Mareykanka ku koraya ama ku dhashayba Soomaaliga sida u bartaan ilaa iyo yaraan ilaa iyo ka weynaanayaan insha Allah marka faadamo assalaamu calaykum insha Allah dadka barnaamijkan maanta ugu sheekay oo maxay tahayna iyagana ha arkaan السلام عليكم thank you so much aad baad u mahadsantahay Badriya walaaleyna aad soo dhaweysay aniga waxa la yiraahdaa Faaduma Axmed Balaale maanta waxaan u joognaa Renton Library downtown Yala waxaan u joognaa maalintii Celebrate Dia waxa weeye multicultural literacy for children marka waxa weeye maanta waxa anigoo kale oo qoray buug Soomaaliya dad Vietnamese dad buug Hindiya so anagoo dhan baa joognaa dadka multicultural multi-language books ka qoray anigu maanta waxaan wadaa saddexdeedii buug waxaan qoray saddex book oo Somali English activity books book 1 book 2 iyo book early learner ka saddexda book waxa ku yaala ciyaalkeena waxaan doonayaa bookta waxaan u qoray ciyaalkaygan horta u qoray bookta si u bartaan Soomaaliga saan u soo dhaweeyo hadalkeena si dadkooda ula hadlaan waxa ku yaala ABC da xuruufta Soomaaliga baata cha ka tiradii koolaba saddex guryaha alaabtoodii jikada alaabtoodii schoolka alaabtoodii waxaan doonayaa inaan qoro book simple si u bartaan sheekooyinka ka sokow waxaan doonayaa inaan baro si loogu hadlo afkooda si dadkooda u gartaan ayagoo Mareykan ku dhashay haddana deeweynay wadankoodii iyo dadkoodii yaqaanaan so maanta aad baan ugu faraxsanahay inay Soomaali badan iga soo qayb gashay library-ga waxaanu leenahay book fair soo socota insha Allah May 29 xagga magaalada Takwila oo ayaduna Seattle u dhow oo book Soomaaliya waxaan invite garanay Soomaali dad book qora oo anigoo kala waxaan doonayaa inaan hadda kadib wixii ka bilaabma dadkeena Mareykanka joogan ciyaalkooda de maalin kasta Soomaaliya geyn karin say still wadankooda iyo culture-kooda alaabtooda ugu dhawaadaan so bookta waxaad ka heli kartaa website-kayga faadumabalaale.com waad ka iibsan kartiin waa lagu soo dirayaa ciyaalka all the way from 0 to 5 well ilaa saddex wixii ka bilaabma 3 sano all the way to 3rd grade ka insha Allah kuwa kalena way soo socdaan so thank you so much waa mahadsantiin You guys, if you guys give me 1 minute, I'm going to tell you the story in Somali. sheekadii laxda iyo rida bari hore waxaa jiray lax iyo ri isla degan guri bay isla deganaayeen maalmaha kamida gaaja haysay waxay doonteen caws inay soo cunaan say u socdeen cawskii bay soo cuneen way soo dhameysteen markay soo dhameysteen gurigii bay ku soo noqdeen ridii baa soo hormartay waxay aragtay mas weyn oo guriga banaankiisa ku dhuumanaya way naxday way carartay waxay ku noqotay saaxiibadeed laxda waxay ku tiri ma gari karno gurigii ma ku noqon karno waxa jooga masween laxdii waxay tiri bas dib male waa cararayna waxaan aadaynaa saaxiibkeen daanyeerka xaafadiisii halkaasay carareen daanyeerka xaafadiisii bay tageen daanyeerku wuxuu lahaa beer weyn oo muus
uu ka beerto way u tageen waxay yiraahdeen waanu baqaynaa meesha mas weyn baa gurigeyga ku dhuumanaya wuxuu ku yiri dib male soo gala soo dhawaada cuntaan idin siinaya biyo idin siinaya nasta kaalay halkan ila jooga way cuntay cuneen biyo siiyay canabus wax kastuu siiyay markay nasteen aad iyo aad bay u daalanayeen marka kadib waxay sameysteen in yar inay seexdaan markay soo kaceen saaxiibkood daanyarkii wuxuu ku yiri waxba ka walwalina hadda doonaysin xaafadu waa xaafadiini anaad la joogi kartiin uma baahnidina gurigi ka baqaysina ku noqotiin oo maskudin ku sugayay marka waxay yiraahdeen annaga isla hadleena way isla hadleen waxay yiraahdeen waa run ma doonayno inaan gurigi ku noqono aan kaligeena ahayn baqaynay waxaan la deganaanayna saaxiibkeen daanyarkii xaafadiisa beerta weyn leh waxay ku yiraahdeen hadda kadib aan kula shaqeynayna muus cambe tufaax canab wax kastaan meesha ka beeranayna halkaasaan kula degaynaa hadda kadib maalinta kadib saddexdood waxay noqdeen ehel reer bay noqdeen way isla degeen saaxiibay noqdeen maalintaas ugu dambeysay inay kaligood noqdaan tell me any words you guys want to know in Somali and I'll tell you. For example, we talked about a goat. In Somali, a goat is called ri. Can you guys say ri? And a sheep is called lah. Lah, and we talked about a danyer, which is a monkey. Ari, exactly. Ari is multiple goats. So when it's one, we call it ri, but when we have a lot of goats, we call them ari, right? Ari, right? And what do we call bananas in Somali? Moss, exactly. What do we call Somali mangoes in Somali? Ambo, right? What is baris in English? How do you say baris? How do you say baris in English? Rice, right? How do you say water in Somali? Bio, right? When we're telling Somali stories, we know what we used to say. This is what my grandmother has taught me. The beginning of the Somali story always goes sheko sheko, right? Sheko sheko, and then we say sheka hariro. I'm gonna say sheko sheko. You guys say sheka hariro. Sheko sheko. Sheka hariro, right? That's how we start Somali stories. Do any of you guys know any Somali stories? Hello everyone, Salam Alaikum. Maanta waxaan joognaa the King County Library's Renton branch, partaking in our multilingual literacy fair for bilingual students to promote literacy for young people, and we are glad to be a part of this as a part of the Ilmi Foundation, as well as Faduma Bulale, who's here and an author of 3 bilingual books. So mashallah, we're just grateful to be here and to connect with community members. I am excited. I brought my 4 kids here, and I saw many parents that also brought their little ones. So we want to say thank you very much, Faduma, for really writing this type of books for our kids. So we're delighted to be here today. Thank you. And I just want to add that we have an event coming up. We have our first ever Somali English bilingual book fair that is happening on May 29th from 4 to 6:30. Inshallah, it'll be an amazing opportunity to see our literacy resources. We're going to have authors, children's books, activities. It's going to be an amazing day for the families. So inshallah, and we'll be reaching out and sharing that all over social media. Memorial Day weekend, yes, May 29th. Thank you. Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Renton News channel on YouTube, Facebook, and Twitter.